السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada asxaabi dhammaantiina fideogan wuxuu ahaa shalay arbacadii anigoo u sii socda Jakarta qoladii oo waxaan ku dhahay UNT heedaas dhahay soo salaam ka wardoon soo marka waxaa jooga meesha tareenka waxaa rabaa inaan inta tareenka raaco laba tareen camal la raaca waxay ku taala Jakarta salkeeda UNT meesha ay degan tahay annagana meel magaalada ka yara baxsan deganahay marka fideogan waxaa rabaa inaan ugu jawaabo wiil Cabdi Casiis inuu magaciisa ku qorayahay jecelahay oo dhahay qaabka lagu imaanayo ka soo hadal asoo waliba warbixin qof meeshan ka warrama camal u hadlay laakiin warbixinta uu asaga sheegay oo sax ahayn markii fideogii aan ka soo hadlay oo aan dhahay wadankan kaliya fiiriye Jakarta si ay u qurux badan tahay laakiin ceebta kaliya ee leedahay meel kasta sidaas biyo ugu jiraan ma aqaan biyahan roobka leemiya markii aan dhahay kaliya Indonesia waxay ku xun tahay shaqo la'aanta shaqo malahan fideogii aan shaqo la'aanta iyo nolosheeda aan uga soo hadlay uu comment ku soo bixiyay uu dhahay waxaa rabaa horta qaabka lagu imaanayo inaad iga soo waranto mid xigtana waxay tahay kulaha shaqo way leedahay adiga war u haynin camal hadal saas camal dadka shaqo way leedahay dadka qaarkood shaqo way helaan camal ka wada wiilkan walaal horta dib ugu sheekay meesha shaqo way leedahay waa lagu soo qalday kulay warbixintaas warbixina oo sax ah ma ahan meeshan shaqo markii 9 qof ay shaqo la'aan yihiin 10 xitaa ma dhihi karo 5 qof laga yaabaa shaqo yar oo dhac ah ama UNT inay turjubaan ka noqdaan ama ama alaab inay dirsadaan oo dad intay soo raadsadaan Afrika jooga iyo meelahaas alaaba ay u dirsadaan boqolkiiba 5 qof laga yaabaa inay dhaqaaqaan soo boqolkiiba 5 qof wax la xisaabo ma ahan wax la xisaabo oo maanta hadii lagu soo sheekeeyay meesha shaqo waa la helaa nasiib waay waa lagu soo qalday taas ha ku soo lugu inaan ku dhihi lahaa hadii meeshan aad shaqo raadis tahay oo shaqo aad u soo raadsanaysid laakiin hadii aad leedahay waxaan u socdaa process xitaa wiil dhalinyaro hada tahay dhanka UNT ragga waxa waay culeys process ka xagooda culeys waaye dumarka wax yar u naxaan dumarka xitaa kuwa single-ka ama single mother-ka kuwaas wax yar u marka soo single mother-ka iyo single-ka shaqo la'aanta meeshaas ugu sii gudbeynaa waxaa dhahday passport Ethiopian haystaa sidee ku soo bixi karaa passport Ethiopian hadaa haysatid safaaradda Indonesia ee ku taalo wadanka Ethiopia ama Soomaaliya ku taala laakiin kulli Ethiopia inay ku taala u maleynaa soo safaaradda tagaysa fiisa dalxiisa dalban kartaa sidaas fiisaha inta ku soo qaadatid aad ku soo bixi kartaa qolada airport-ka kaleeto dadku way ku dhigaan qashqashaad lacag yar ay weydiiyaan soo lacagtaas yarta ah laaluushkana inaad iska bixisid kadibna wax yar mooto afkeeda taala qabqab la siinayo ka raali noqda lacagta laaluushka inta iska bixisid airport-ka hadii kugu dhigaan qaabkaas ku iman kartaa hadii aad dhahaysid waxaa u baahanahay qof fiisaha ii soo dhameeyo fiisaha inta waa lagaaga soo diri karaa dad waxaa jooga fiisaha u diro qofkii u baahan fiisaha iyo lacagta airport-ka laaluushka waxaas oo dhan hal mar aad isku bixinaysaa soo marka hal mar isku bixisidna ticket-kaada soo jaranaysaa sidaas ku imaanaysaa lacagta oo fiisaha iyo ku baxaysa iyo laaluushka iyo wax oo dhan adi ticket waxaa laga yaabaa inay $3,000 ama $2,800 meelahaas inay kugu baxdo kuleysa u maleynaayo aniga dad ma keeno dadna kama caawiyo inaa waxaas u soo dhameeyo laakiin dad waxaa jira $100 camal ka raadsado oo process-kaas dadku u soo dhameeyo hadii aad rabtid qof noocaas oo kale inaan ku soo raadiyo aan kugu xirana qaybta comment-iga igula wadaag marka